Taliska ciidanka booliska gobolka Togdheer ayaa gacanta ku soo dhigay khamri tiro badan oo si sharci darro ah loo soo gelinayay magaalada Burco waxaana eedeysanayaashii lagu soo qabqabtay maandooriyaha khamriga ay maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer ku xukuntay 6 sano iyo ganaax lacageed ku-xigeenka xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer Xuseen Cali Khayre ayaa warbaahinta uga waramay xukunkan iyo qaabka uu dhacay maanta maxkamadda gobolka Togdheer waxa ay xukun ku riday 3 dambiilayaal oo ku eedeysnaa khamrigan aad arkaysaan oo ka kooban 429 litir kaas oo boolisku soo qabtay muddo dacwad socotay ka hor oo ilaa iyo bil buu socday dacwadani waxa aanu ku guuleysanay inaan maxkamadda ka hor cadeyno xeeraantii iyo boolisku dambiga dhacay iyo cidda gashay maxkamadduna waxay ku riday xukun sharci ah isla markaana fulinta sharcigu waxa ay muhiim u tahay in ay dadku nabad ku wada noolaadaan in waxyaabaha xaaraanta laga durko 6 sano lagu xukumay 6 milyan qaar oo waxa iyagu hore loogu xukumay dambigan hore loogu helay oo way ka ciqaab badnaayeen kuwa markii koobaad lagu qabtay laba xukun sana waxa lagu xukumay 3 sano iyo 6 milyan run ahaantii waa xukun u qalma in ummadda lagaga fogeeyo waxyaabaha khatar taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay khamrigan ay boolisku gacanta ku soo dhigeen wuxuuna sheegay in qaar kalena ku daba jiraan soo qabashadooda isagoo bulshada gobolka Togdheer u soo jeediyay inay la shaqeeyaan booliska wadarkaysan baan u maleynaya meeshan wax yaala khamri la soo qabtay iyadoo ciidanka saldhigga Faarax Xamaar waliba taliyaha saldhigga horeeya oo aad uga hawlgalay aanu mahad celinayo cid kasta oo xukunkaasi oo ku soo baxay ama waxa wadana ciidanka bileysku ay tallaabo ka qaadi doonaan sharciga waafaqsan marnaba u dul qaadan mayno wixii waxaan oo kale ay soo gelinayay magaalada ee dadka martilin inay ku doonayaan inay ummadeena ay ku aafeeyaan maadaama xilli abaareed lagu jiro oo dadweynihiiba xaaladda kale lagu jiro ognahay in khamri iyo wax lamid ah soo geliyo u dul qaadan mayno tallaabo sharciina waa ka qaadi doonaa waxaan kaloo inii sheegayaa intanuun maaha khamrigu ay ciidanka bileysku soo qabteen khamri badan oo ay xalay soo qabteen baa jira oo iyadana xukunkeegu socdo saxaafadan aanu soo bandhigi doono waxaan u sheegaynaa cid kastoo khamriga wadata iyo cid kastoo ku raad joogda inay hawsha wax ka hayso inaanu tallaabo sharci ka qaadi doono khamriga ma ogolin wixii ummadda fasaadinaya hawshaas kala soo gelinaya ma ogolin ciidanka bileysku waxay habeen iyo maalin heegan u yihiin inay wixii hawlahaas oo kala wada sharciga waafajiyaan aadna waan uga shaqayn doonaa ugu dambeyntina waxa khamrigaasi lagu gubay maxkamadda horteeda waxaanu khamrigani noqonayaa kii ugu badnaa ee boolisku gacanta ku soo dhigaan sanadkii tagay ee 2016 Axmed Kaafi Salebaan Carab waa Bari TV Burco.